ninkani wuxuu sanad kasta aroosi jiray 12 gabdhood taasoo ka dhigan in bil walba oo gabar la aqalgali jiray iyadoo taasi jirto haddana waxa uu lahaa caado aad u xun taasoo gabdhaha mustaqbalkooda wanaagsaneyn ninkan isboqray waxa uu lahaa 2 gees oo dhaadheer oo dadka deegaanka degan oo dhan uga duwan yahay gabadhii uu guursado iyo ehelkeedaba waxa uu sheegi jiray in haddii ay dhali weyso cunug sidiisa oo kale geesa leh uu furi doono taasoo sababi jirtay in sanad kasta ku dhawaad 10 cunug iyo hooyooyinkeedu isla ceeriyo magaalada gabdhaha jooga 80% waxa ay ahaayeen garooba ama carmal cunug haysta dhammaantood waxa ay eersanayeen dhaqan xumada ninkan ku sameeyay waxa ay sidaa ahaataba maalmaha kamida ayuu sidiisii gabar aroosay gurigal kadib waxa ka soo wareegtay 1 sano waxa ayna dhashay wiil aan gees lahayn sidii caadada ahayd ninkii isboqray gurigii ayuu ka saaray balse xaaladda soo wajahday waxa uu dheereed inay la nooleed aabaheed oo dan yara mana awoodi inay kafaala qaado nolosha wiilkeeda aad ayay u murugootay heer ay ku fakartay inay wiilkeeda nolosha ku aasto balse iimaankeeda iyo arxankeeda hooyanimo oo iskaashanaya waxa ay go'aansatay inay cunugeeda korsato wiilkii waa u weynaaday muddo 25 sano ayaana ka soo wareegtay dhalashadiisii hadda waxa uu caawinayaa hooyadii oo meherad yar ku haysata suuqa balse dhibka haysta ayaa ah inuu wiilkaani qabo madax xanuun la soo dirsay sanadkii ugu dambeeyay hooyadii waxa ay u tagtaa ninkii isboqray si ay caawinaad u weydiisato balse markasta waxa uu ku yiraahdaa inaan dhalay cadeen si aan u caawiyo waxa ay sida ahaataba maalin ayuu wiilkii ku dhex suuxay suuqa dhexdiisa waa la soo qaaday markii uu soo miiraabana waxa uu la soo kacay isagoo leh 2 gees kuwaas oo u eg kuwii boqorka wiilkii waxa loo keenay ninkii isboqray markii uu arkana aad ayuu ula yaabay balse nin faalalow ah oo markasta la talin jiray ayaa ku yiri wiilkani waa kii ku dili lahaa xilkana kaala wareegi lahaa inta ka gadaal ninkii isboqray 2 nin oo askar oo waardiyo ahayd ayuu u wacay waxaana ku yiri wiilkan wada ee soo dila wiilkii oo ahaa wiil aad u aqli badan ayaa markii meeshii la geeyay waxa uu ku yiri 2 askari waxaan ahay wiilka saxda ah ee ninkan u dhalay waxaana ahay kan dhaxlaya magaaladan maamulkeeda haddii aad dishaan askar baad sii ahaa doontaan gabdhihiinuna garooba ayay sii ahaanayaan xoolihiinuna waxay noqon doonaan kuwo uu nin qura iska qaato haddiise aad badbaadisaan waxaad ka mid noqon doontaan madaxda magaaladan gabdhihiinuna xaasas ayay ahaan doonaan xoolihiinuna waxay noqon doonaan kuwo adinku aad maamushaan doorkana adinka ayaa iska leh askartii waxa aad u taabtay hadalkii wiilka waxayna go'aansadeen inay wiilkan badbaadiyaan beddelkiisana ay dilaan ninkii isboqray sida ayayna ku soo baxeen waxa ay ku soo laabteen gurigii ninkii isboqray deetana qoorta ayay ka jareen sida ayuuna wiilkii kula wareegay booskii dadka lagu dulmi jiray waxa uuna biilal iyo sidoo kale mushaaraad u bilaabay hooyooyinkii iyo carruurtii la dhashay ee aabihii dulmay haddaba sheekadan waxaan ka baran karnaa haddii qof uu isku dayo inuu dulmi sameeyo weliba uu joogteeyo in maalmaha ka mid ah xaq uu soo daahiri doono waana caadada lagu yaqaano dadka markasta ku takrifala awoodaha ay helaan inaysan ku sii waarin dunidan waxaa haysataa tusaalooyin badan oo dunidan ka dhacay dad badan oo isku haysta inay yihiin awoodda kale ee adduunkan ku nool deetana ku dambeeyay meelo aysan ka mahadin tusaale waxa kugu filan awoodnimadii iyo boqornimadii uu sheegtay fircoon waxa aan og tahay waxa ay noloshiisa ku dambeysay iyo inuu yahay tusaalaha kale ee arki karto kaasoo ah qofka awoodda sheegta haddana ku tagrifala in aakhirkaasna laga awood badi doono waa bahdi sheeka production iyo abwaan shalaawo idin leh muuqaalka ma sheer garaysay laagna ma saartay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh